ciidamada gorgor oo balad xaawo ku dilay askar Kenyaan ah oo xuduudeena qalad ku soo gashay ciidanka qaranka oo ilaalinaya xornimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya shargareeya muuqaalka warbixinta waxaan ku eegaynaa xog la xiriira ciidamada qarankeena oo difaac xoogan u galay difaacidda dalka askar ka tirsan kuwa Kenya oo xuduudda Soomaaliya lagu laayay kadib qalad ay ku soo galeen Kenyaanku maxay ka damacsan yihiin gudaha Soomaaliya askartooda ujeedkoodu muxuu ahaa muuqaalka ayaan ku falanqeynaynaa si aan marka hore faahfaahinta u guda galno shargareeya muuqaalka ku faafiya gruubyada lana wadaaga saaxiibadin waxaa sidoo kale naga xasuusinaa in leegta iyo sheerta muhiim ay noo tahay layg la dhac muuqaalka si saaxiibo badan uu u gaaro waa hagaag aan ku horeyno ciidamada qaranka gaar ahaan kuwa gorgor ayaa balad xaawo ku dilay askar Kenyaan ah oo xuduudeena qalad ku soo galay ciidamadan Kenyaanka ah ee balad xaawo lagu dilay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay wadeen qorshayaal kala duwan oo ay ka fulinayaan gudaha dalka iyagoo faragelin ku hayay dhulka Soomaaliyeed balse ciidamada gorgor oo si weyn uga soo horjeeda qorshayaasha ay wadeen kuwa Kenyaatiga ayaa waxa ay bilaabeen in howlgallo ay kaga hortagaan qaar ka mid ah xubnaha askartii Kenyaanka ahaa ayaa lagu laayay xuduudeena iyaga oo markii horeba qalad ku soo galay dowladda Kenya waxay caadeysatay in ay si qalad ah ugu soo xadgudubto dhulka iyo badda Soomaaliyeed iyadoo hore dhowr jeer sidaan oo kale sameysay Kenyaanku intooda badan maalmihii ugu dambeeyay waxa ay sameeyeen xadgudubyo kala duwan haddii ay noqon lahayd mid dhuleed iyo sidoo kale mid badeedba dowladda Kenya oo Soomaaliya daris la ah ayaa waxa ay isku dayaysaa mar walba faragelinta madaxbannaanida Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa midaasi ka biyo diiday ciidamada xoogga dalka ayaa horay waxa go'aan ay ugu qaateen inay ka hortagaan faragelin walba oo dowladda Kenya isku daydo waxaana dowladda Kenya horay looga digay in aysan dalka faragelin ku sameynin goobo ay ka joogeen gobolka Gedo ayaa dib looga riixay ciidamada Kenyaanka ah waa ay ka baxeen magaalada balad xaawo ayay soo galeen ciidamada waana lagu dilay magaalada balad xaawo oo xuduud ahaan Kenya u dhow ayay ciidamada Kenyaanka ah soo galeen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Rage ayaa horay ciidamada qaranka waxa uu ugu sheegay inay tilaabo ka qaadaan cid walba oo ku soo xadgudubta madaxbannaanida Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaana caadeystay in madaxda maamul goboleedyada uu la heshiiyay si Soomaaliya danihiisa uu uga fulsho waxaana maamulada Puntland Somaliland iyo Jubbaland ay yihiin kuwa Kenya heshiis la ah waxaana maalmihii ugu dambeeyay socdo qorshayaal ciidamo Kenyaan ay ku soo galayaan gudaha dalka baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno oo ka mid ahaa madaxweyne Farmaajo ayaa horay waxay u sheegeen in Kenya laga saaro ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka maadaama Kenyaanka ay xifaaltan gooniya kala dhaxayso Soomaaliya xuduudda Soomaaliyana ay ku soo xadgudubtay dhowr jeer Kenya oo u muuqatay mid xadgudubkeeda uu sii badanayo ayaa mar kale bilowday dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Soomaaliya waxaana ciidamada qaranka ay u istaageen difaacidda qaranka iyo sidoo kale in dhulka Soomaaliyeed laga ilaaliyo cadawga Kenyaankan ku soo duulay dhulkeena ayaana ugu dambeyn jab xoog leh lagu gaarsiiyay ciidamada qarankeena ayaana u istaagay difaacidda dalka iyo cid walba oo kor imaatay inay ka celiyaan dowladda Kenya baaqyadii loo diray ma aysan wali ka jawaabin waxa ayna muddooyinkii ugu dambeeyay iska indhatiraysay hadaladii ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo ciidamada xoogga qaranka taliyaasha ciidamada ee jooga gobolka Gedo ayaana horay waxay u sheegeen inay tilaabo ka qaadayaan cid walba oo ku soo xadgudubta madaxbannaanida dhulka iyo badda Soomaaliyeed Soomaaliya tan iyo markii xornimada ay qaadatay waxa ay u soo jeesatay inay iska difaacdo cid walba oo isku dayda in gumeysi ay ku soo gasho 1960 ay ahayd markii Soomaaliya heeryadii gumeystaha ay iska tuurtay waxaana hadda laga joogaa 62 sano ciidamada qaranka ayaana sheegeen in aysan marnaba u dulqaadanin in heeryo gumeysi la saaro iyagoo 62 sano madax bannaan ciidamada Kenyaanka ah ee la laayay ayaa tiradooda waxa lagu sheegay in ay gaarayaan ilaa 200 oo askari kuwan ayaana ahaa kuwa dalka faragelin ku sameynayay waxa ayna balad xaawo u soo galeen si qaldan xuduudeena ayay qalad ku soo gashay Kenyaanka waxaana ugu dambeyn laga abaalmariyay qaladkii ay sameeyeen xornimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya ayay ciidankeena u halgameen waxa ayna dhiigooda u shubeen in qaranka ay difaacaan dal aan ciidan lahayn dal ma noqdo dowladna ma noqdo marka idinkaan idinku jiifaa dalka idinku degan yahay naftiina aad huraysaan maalin walba aad dhaawacmaysaan runtii waa la idinkaga mahad celiyaa qof walba oo Soomaaliyana waa idin ogyahay
marka waxaan kula dardaarmayaa inaad xoojisaan inaad soo celisaan sharafka dalkiina iyo dowladnimadiina waxaana gaarteen horumar weyn xaqiiqatan markaan idiin sheego qayb waxaa ka ah madaxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo idinka aad hoos tagtaan iyo taliyaashiina iyo tababarka aad haysataan iyo qalabka runtii aad haysataan yaa qayb ka ah horumarka ama progresska aad gaarteen fare kama qodna waxaan rajaynaynaa inaan xoojinno oo aan soo celinno haybaddii ciidanka Soomaaliyeed ee ku lahaayeen caalamka oo loo yaqaanay inay ahaayeen ciidanka ugu xoogga badan ciidanka ugu tayada badan ciidanka ugu qalabka wanaagsan qaybaha kala duwan oo maxaan ku raahdaa laga rabo ciidan hadday tahay ciidan bad maraakiibtii iyo doomankii ay lahaayeen hadday tahay ciidan cir ciidankii cir dee ciidanka cirku waxa weeye waa diyaaradihii dagaalka oo noocyada kala duwan ay Soomaaliya lahayd iyo dadkii ku shaqaynayay hadday yihiin pilotska iyo makaaniga iyo ciidanka dhul oo noocyada kala duwan ahaa waxayna ku soo noqonaysaa annagoo u wada jeesana hal mowqif oo ah inaan u adeegno dalkan uguma adeegaysa haddaadan waddani ahayn waxaan naqaanaa wixii dalka burburiyey oo aan ku celcelinno mar walbana loo baahay in lagu celiyo oo qabyaaladda ahayd indheheen aan ku soo aragnay annagoo joognay meesha ugu sarraysay inaan nimid meesha ugu hoosaysay marka qofkii raadiya wax hoose dan shaksi qofkii raadiya dan qabiil iyo qabyaalad jawaabteedu waxay tahay meel hoosaad joogaysaa haddaad raadiso qaran wax lagu waaridiyeeyaa waddaniyad waxaa weeye waxaad tegaysaa waxaad dhisanaysaa ciidan xoog leh oo awood leh yaad dhisanaysaa oo aad ku helayso xushmad iyo sharaf iyo karaamo dalkaaga dhexdiisa iyo dibaddiisaba maxaa yeelay cadowga soo hunguriyeyn kara ma jiro hadduu yahay gudaha iyo dibaddaba marka waxaa ii muuqda ififaalo wanaagsan waxaa ii muuqda rajo wanaagsan sidaad u shaqaysaan sidaad u dhisan tihiin kala dambayntiinna mana ku shaqaysaan dhaqaale waa ogah maxaa yeelay dhaqaalaha ciidanka uu ka helo dowladda waa xadidan tahay